aanu nahay madaxdii sare ee Awdal State waxaana soo gaaray bariyahan dambe in qolo gooni u goosata ah oo fallaaga ah oo uu madax yahay ninka la yiraaho wabar oo suldaan wabar la yiraaho iyo nin la yiraaho ina maasheeye ay bariyahan dambe gujo nagu hayaan saddexdeedaasi marka waxaan ka nimidnay waxaan ka soconay urur la yiraahdo Awdal Political Council oo dibadaha aan ka aasasnay bishii March lana shaqeeya dadka ku hawlan sidii ay gobolka Awdal gacanta dadka ugu soo celin lahaayeen ee u nabadeyn lahaayeen marka horeba groupkaas ka soconay runta aanu idin sheegno xaqaa'iqa meesha ka jira waynu idin taabsinaa waxaan maqlayaa nin la yiraaho maasheeye inuu bariyahan dambe soo qoystay isaga oo qabyaalad gaashaamanaya isaga oo isku dayaya inuu qabyaalad ku burburiyo dhismaha Awdal State iyo qaabka ay u dhisan tahay uu doonayo inuu halgankeega ka dhigo halgan qabyaaladaysan Awdal State waa ogeydo magaalada Minneapolis meelihii ugu waaweyn ka soo aasasnay bay kamid ahayd annaba waxaan ahaa dadkii ugu deewaanay marka asaasayba moogtahay Awdal State waa waxaan u soconno waa ujeedadaan u soconno mustaqbalka hortii hore anagu naga mid aha anax walbana diyaar baan ula noqonay maxaa ka dambeeyay marka ujeedada ugu weyn ee Awdal State u sameeyay marka ugu horeysa waxay ahayd inaan dadka ku wacyi gelino in ay gartaan in ay xaq u leeyihiin muxuu ahaa in maamul Soomaali hoos yimaado federaalka hoos yimaada inuu khaayimo Awdal State oo khiyaamo weyn kula kaco tii waa ta keentay inuu urursado dad maatiya oo wax magarata ah oo uu ku shaqaysto oo uu ku raadsado sidii uu u burburin lahaa maal iyo muruqba Awdal State ma kari karo kadib 2014 qof kale oo dooranay ma jiro layse kullay guusha Awdal State ugu weynay gaadhay waxaan u soconno mustaqbalka waadiga arkay inay 20 qof madaxweynenimadeeda isku dilay Awdal State way dhaaftay halkii ay nin iyo laba iyo saddex ay burburin lahaayeen way ka gudubtay halganka Awdal State waa halgan aad iyo aad u quweystay oo muruqiisa maanta inuu ku meel maro iyo siyaasadiisa raba dadkaasi maadaama ay dadkiiba u halgamayaan oo dadkii u hadlayaan annaguna dadkii dibada hadiyo goor lagu hadli jiray ee meel walba uga dhawaaqi jiray aan nahay waxay noqotay lagama maarmaan in dadkii aan dib iyo dheef la qaybsano oo halka ugu tagno oo aragno wadciga dhabta ay ku nool yihiin iyo duruufaha ay ku nool yihiin ta kale aan aragnaba aan dhagahayagana ku soo aragno ee ku soo maqalno indhahayagana ku soo aragno cadaadiska dadka lagu hayo annagu uma diidanin inuu ka mid noqdo Awdal State laakiin isaga ayaa iska saaray markii uu qabyaalad la yimid waxaan idin sheegayaa waliba oo idin cadeynaya Awdal State inay ka weyn tahay wax caa'ila yari ay wadato suldaan wabar waxaan ugu tagnay iyo rag badan oo akhyaar oo halka joogaba oo kamid yahay Saleebaan Cawaale Good oo kamid yahay Mustafa Miicaad rag badan oo kale waaweyn oo halka joogay iyo kuna ahmiyad weyn leh oo General Dabeec oo kamid yahay oo Xasan Daayir oo kamid yahay rag badan oo markaa waxaan ugu tagnay meelaha buuraleyda iyo meelo qorfoofa oo buurale ku beegan magaalada Boorama ku beegan reer Awdal waxaan uga digaynaa inay ka fogaadaan nimankan aad ku sheegteen nimankan isku sheegaya kacdoonka inaanay kacdoonahayn ay wataan gorgortan yar oo raqiisa oo doonayaan inay wax ku kasbadaan dadkaasi maadaama ay dadkiiba u halgamayaan oo dadkii u hadlayaan annaguna dadkii dibada hadiyo goor lagu hadli jiray ee meel walba uga dhawaaqi jiray aan nahay waxay noqotay lagama maarmaan in dadkii aan dib iyo dheef la qaybsano oo halka ugu tagno oo aragno wadciga dhabta ay ku nool yihiin iyo duruufaha ay ku nool yihiin ta kale aan aragnaba aan dhagahayagana ku soo aragno ee ku soo maqalno indhahayagana ku soo aragno cadaadiska dadka lagu hayo dibta ay ku jiraan waxyaalaha ay ka cabanayaan marka kullay marba badan baa la oran jiray dadka dibadaha lagu eedeeyo la yiraahdo dhulkii ma tagteen runaantii waan tagnay waan soo taabanay waan la kulanay cid walba waa yeel baan la kulanay dhalinyar baan la kulanay dumar baan la kulanay cid walba wax waan weydiinay cid gidigoodana waxa ka wada go'onayd oo ay rabaan in ummadda Soomaaliyeed ay wax la qabsadaan ma rabaan in la joobo oo meel aan rabin lagu qasbo ma rabaan